sheekadani waxa ay tusmayn u tahay qayb kale oo nolosha iyo waayaha qallafsan ee Soomaalida daaran. qalinku waa Muxyidiin Maxamed, tabintuna waa aniga oo Mawlid Deerow ah. kala barkii hore ee qarnigii 19aad ee miilaadiga, nolosha bulshada Faransiisku waxay ahayd mid aad u cakiran. saboolnimadu waxay ahayd mid xadhka goosatay. in yaroo dadka ka mid ahi waxa ay la socon kari laayeen dhereg, halka boqolleyda badani ay u la'aanayeen macluul iyo gaajo. fursadaha shaqadu way koobnaayeen, saacadaha shaqadu tirabeel ayay ahaayeen. dumarka iyo ciyaalka ayaa ahaa kuwa looga faa'iideysto sida ugu arxanka daran. gabdhuhu waxay iibgeyn jireen timahooda si ay noloshooda ugu biiriyaan maalin kale oo dheeri ah. dawladnimadu innaba wax naxariis ah uma hayn bulshada. heerarka waxaa sida ugu kakan loogu fulin jiray danyarta. ganaaxyadu waxay ahaayeen kuwa aan loo meeldayn. xabad rooti ah qofkii xada 10 sano oo xabsi ah ayuu mutaysan jiray, sidaasna jeelka ayuu ugu abaadi jiray. xasiloonida siyaasadeed ee dalku waxay ahayd mid aan sugnayn. kacdoonna isdaba jooga ayaa harqiyey. had iyo goor xaalku waxa uu ahaa mid qasan. banaanbaxyada faqrigu dabada ka riixayo waxay ahaayeen kuwa aan laga nasan. nolosha magaalooyinkii Faransiisku waxay ahayd mid aan la malayn karayn. dembiyada sida dilalku waxay ahaayeen maalinle ama joogto. xaafaduhu kuwa cidhiidhi ah oo ay saboolnimadu heeriyeysatay. carruuruhu kuwa wadooyinka inta lagu dhalo dabadeedna aayar looga dareero. foolxumo oo idil ayaa ku dhannayd sawirrada ay bixinayeen guud ahaan magaalooyinkii Faransiiska ee xilligaas. si kale qaxar isu laaban ayaa ka jiray dalkaas, iyadoo ay arrini sidaas iyo tahay ka daran. 31 Maarso sanadii 1862 waxaa la baahiyey sheekafaneedii loogu magacdaray Les Miserables oo eray ahaan malahayga loogu afnaqi karayo hogayaasha ama kuwii kadeedna. sheekadan waxaa qoray Victor Hugo oo ahaa qoraa isla reer Faransiis ahaa. inkastoo ay sheekadu tahay mid mala awaala, haddana waxa ay si dhab ah marag fur ugu ahayd sida uu ahaa xaalka bulsho ee gudaha dalka Faransiisku waayadaas uu sheekadan qoraagu baahinayay. sheekada oo ka warramaysa amaba daaran dacdarrada, darxumada iyo eexda bulsho ee ku milantay nolosha dadweynihii Faransiiska ee xilligaas ayaa noqotay mid qaraxday, iibkeeduna cirka isku shareeray isla gugii ay soo baxdayba. waxyaabaha loogu aaneeyo in sheekadani sidaas oo dhan shacbiyad u hesho isla markaana noqoto mid degdeg uga gadanta dhagaha akhristayaasha ayaa waxaa ka mid ahayd inay si dhab ah uga faallootay waaqica bulsho ee ay ku signaayeen dadka reer Faransiis. in ka badan inta ay tahay sheekafaneed uu qofmaankiisa ka soo dhalaaliyey, waxa ay noqotay qayladhaan badbaado ah oo kol qura ka soo dhex yeedhay gudaha dadyow aad u dhibtoonayay. dabadeedna sida daawo uu dhakhtar aqoon leh u qoray bukaanno aad ula ildaran cudur safmar ah ayay u laba liqeen dadyowgii reer Faransiis iyo intii ay gaadhay ee la jaarka iyo jaalka duruufeedba ahaa, iyaga oo kaga nafisayay ama kaga dhuumanayay xaalka khadhaadh ee jeerkaas ay ku sugnaayeen, isla markaana u arkayay qaymo ay waayuhu Victor Hugo ugu soo dhiibeen. sida shacsanaha ah, suugaantu waa milicsiga ay bulshadu kaga dheegato waayaheeda keli iyo wadar. midkii ay ahaataba tixdeeda ama tiraabteeda waa hubaal in murtida hal abuurku ay tahay mid la iska dheehdo, taas oo uu qof waliba ka daalacan karayo baal isaga si gaar ah u quseeya ama taabanaya jiraalkiisa.